Okay, marka kusoo dhawaa markale muuqaal cusub ay koorsadii ahayd barashada Python tutorials af Somali. Weli waxaan kusii jirnaa koorsadii. Marka muuqaalkan waa muuqaalkii afraad. Waxaa ku baran doontaan sida loo isticmaalo if else statement. Marka gudaha usii galno weli waxaan joogaa folderkayga ahay Python script. Marka new ayaan dhahanaya mid cusub ayaan samaysanaya notebook oo Python ah. Python 3 ayaan kusii dhiftay. Saddex muuqaal hore usoo qaadanay. Haddii aadan su'aal waxa qabtid nala soo wadaag commentiga videoga ama video kastaba. Marka inta waxaan qoranayaa if else statement ayaan ku wada jirnaa. Marka if else statement sida loo isticmaalaa waxaad isticmaalaysaa marka koina variable samaysid kabacdi variablada tiro aad gelaysid war markaas kusoo koobtid inaad dhahdid haddii uu kan la mid noqdo kan soo daabac, haddii kan uu kan la mid noqon waa camal kana soo daabacin. Marka aragno waxaa samaysay variable a waxaa ku jiro tiro oo ah 2. waxaa kala samaystay variable b waxaa ku jiro tiro 5 ah. Marka waxaan leenahay if haddii variable oo a uu ka yar yahay variable oo b colon intraysa. Marka if ayaa dhaysa space a variable ka ah space less than haddii ka yar yahay space b variable ah colon ayaa dhaysa. Markaas ka bacdina enter ayaa dhaysa. Marka waxaa qorayaa haddii uu ka yar yahay a b waxaa soo daabacdaa print garay. Marka waxaa soo daabacaysaa dhahayna a is less than b. Marka sa ujeedo a is less than b ayuu soo daabacayaa. Marka waxaa koodkaan lahan if statement clause. Marka waan galayna sa ujeedo marka sa ujeedo a is less than ayuu soo daabacay. Haddii marka inta ka bedelno aan dhahno 6 wax soo ma daabacay. Mujid haddii inta ka bedelno marka b aan dhahno quotation oo jeeda a is less than b. Marka markii aan inta gelino tirad oo b ka badan soo ma daabacay. Marka saas samaysidna marka waxaa isticmaalaysaa else statement laho. Haddana waxaa isticmaalay kaliya if. Marka sida la sameeyo else samayso variable c markaas waxaa leeyahay 33 marka tiraadid d da haddana variable 12 markaas waxaa leeyahay if haddii aadid c ay ka yar tahay d waxaa soo daabacdaa kana soo koobisaa marka a is less than b. meeshaan marka imaadidna waxaa rabaa intaa dhaho inta kalaan waxaa ku sheegnay haddii a ay ka yar tahay c ay ka yar tahay d saan soo daabac. Marka waxaa rabaa haddii d marka ay ka yar tahay c maxaa soo daabaca marka waxaa leenahay markaas else ayaa dhaysa. Kabacdina else marka dhaadid colon ayaa dhaysa enter ayaa dhaysa. Marka waxaa qoraysaa print garay haddii kale gas marka print garay bracket furahe a is not less than b d. inta a muqarnana idinka soo koobiye lama aha ka soco d da inta d da intana c dhaho intana markaas waxaa dhahdaa haddana c
intan marka waxaa dhahdaa d. marka koodkan wuxuu yahay si faa'iidaya soo samaystay waa soo store gareystay after if aad sameeyey koodkii si loo sameeyay halkan ku aragnay marka else adin aad sameeyey else markaa sameeyey haddii uusan kan la mid ahayn yaa conditionkan awl helwaa conditionka inta ku qoran soo print gareey marka conditionka kale had marka muxuu soo print gareyn inaad tirada ujeedaa 33 ku jira kow lama saddex ma soo print gareena arkayna wuxuu soo print gareey c is not less than d. meesha marka aan ku qor hadana aan dhaho 100 ma soo print gareena hadana c is less than run c is less than d. so marka waxaa jira marka wax badan oo aad ku isticmaali kartid marka variable sida loo sameeyo ayraade if else statement condition ayaa lahaa conditionka hadda isticmaalin waxaa lahaa relation condition waxaa kamid ah less than, greater than, equal, not equal, not equal waxaa la qoraa sana not equal marka waa fahantaana filahaan marka hadda waxaan isticmaalnaa anaka keliya less than isticmaalnay greater than isticmaalnaa hadana greater than saa isticmaalnay kan lasoo koobiyeynaa kan markaa soo koobiyeyno halkaan imaanayna marka new line ku darsaynaa kan ku baas dheynaa marka meeshana greater than ayaan ka dhigaynaa greater than variable magacyada bedelaynaa int e si loo fahmo ef gacalina haddii marka ef ma meesha marka waxay noqonaysaa e haddii ay ka weyn tahay f waxaa soo print gareysaa si sax ah si sax ah ayay si sax ah ayay ugu weyn tahay f marka haddii kalena uguma weyn ayaan dhehnaa marka uguma weyno marka greater than ku isticmaaltaa ujeedo hadda haddii soo print gareyn muxuu daabacayaa uguma weyno haddii marka dhaho 600 soo daabacayaa si sax ayay ugu weyn tahay ef marka hadda greater than isticmaalnay markaan isticmaalnay waxaan rabnaa inaan isticmaalno equal haddii marka saddex condition ah tokada ka dhigayna hadda laba condition ay ahayd marka haddii la eg tahay marka waxaad isticmaali kartaa markaas aan elif function line elif isticmaalaysaa elif ma ogtahay elif markaad dhahdid equal marka si fiican u fiiri waxaan isticmaalaynaa anaka calaamad laba equal ay isticmaalaynaa si fiican iska fiiri soo print gareey way isla egyihiin marka la dhigaa isna egyihiin marka haddii aan ka dhigo markinta 100 waxay soo daawacaya conditionkan dhaho way isla egyihiin marka ujeeda marka way isla egyihiin soo daawacay marka taas tartiibku babsiyo variable aad samaystay ef marka waxaa dhahay haddii marka ay ka weyn tahay f soo daawac haddii marka ay la mid tahay markeeda haddii la mid tahay calaamada la mid tahay laba equal la isticmaaltaa f waxaa soo daawacda way isla egyihiin haddii marka aysan labadaas condition ba ahaynba ay ka weyneen ayna la ekeen
markaas waxaa soo daabacaysaa uguma weyno diidmo macnaha soo marka zaid ay u fahantaa filaa waxaa dhiman not equalna ay soo baroway cashir ku xiga ayaan kuu fahansiinaya hadda isku day inaad soo tijaabsid waad ku mahadsan tahay inaad daawatid muuqaalkan u shirkada asxaabtaadana like subscribe ya soo dhawaad haddii aad ku cusub tahay subscribe